saako aan joogno taliska ciidanka asubta gobolka Sanaag waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ka gudbay caqabad adag ka gudbay runtii ayaan u hambalyeeyaa waxaan leeyahay guul baad keentay guul baad ciidankii gaarsiisay waxaan u hambalyeenayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo dirajada uu la siiyay hambalyo aniga waxaan hambalyeenayaa wasna taliyaha ciidanka asluubta General Maxamed Xuseen Faarax karaamadii ciidannimo iyo kala dambeyntii iyo dirajadii oo laga baxay ciidankiisina oo maanta ay bilaabantay kala dambeyntii ciidanku maadaama la xidhay dirajadii lagu kala sareeyay waxaan kaloo inta ku dhinayaa maamuladii hore oo celin jireen mid kasta oo soo marta waxa la siin doonaa dirajooyinkii mana ay suuroobin maanta waxa ku guuleystay dawladda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waan ugu hambalyeynaa waana ilaahay amarkii guul baanu leenahay annagana aan dirajada loo dhiibay oo naloogu dhiibay qaranka naloogu dhiibay sida ay tahay ayaan ummadda wax ugu qabanaynaa uguna shaqaynaynaa